بسم الله الرحمن الرحيم warmurtiyeed wada jira oo madaxweynayaashii hore ee dalka ay ka soo saareen kulamo wada tashi ay ku yeesheen magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland madaxweynayaashii hore ee dalka mudane Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka ambaqaadaya doorka kaga aadan xoojinta midnimada iyo wada jirka dawladnimada Soomaaliyeed ayaa kulamo wada tashi ah kula qaatay magaalada Garowe madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani muddadii u dhaxaysay 22 Maarso iyo 23 Maarso 2024 labada madaxweyne oo ka walaacsan saameynta khilaafka arrimaha dastuuriga xaaladda amni ee dalka qasaaraha ka dhashay weeraradii cadawgu uu ku beegsanayo ciidamadeena iyo duruufaha halista ku ajiritaanka iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo saareen qodobada tan madaxdu waxa ay bogaadinayaan dadaalada nafhurnimada ah ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku wajahayaan argagixisada al-shabaab iyaga oo shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed uga tacsiyadeeyay dhammaan haliyadii ku shahiiday difaaca dalka. madaxweynayaashu waxa ay adkeeyeen dadaaladii muddada soo socday ee lagu bixiyay dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna dawladda federaalka ugu baaqeen in ay dib ugu laabato dhabaha dhismaha ciidanka iyo dib u xoreynta iyadoo loo dhameystirayo ciidamada agabka qorshaha iyo saanada ay u baahan yihiin si ay u xoreeyaan dalka. madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay la wadaageen madaxweynaha Puntland natiijada iyo caqabadaha waanwaantii ay ku jireen ee ku salaysnayd khilaafkii dawladda federaalka iyo Puntland ee arrimaha dastuurka la xiriira. labada madaxweyne waxa ay ka xun yihiin in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ka cagajiiday ballantii ku salaysnayd isu soo dhaweyntii labada dhinac taas oo markii hore erga ahaan uu uga codsaday in ay u tagaan Garowe kana soo shaqeeyaan xalinta khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo dawladda federaalka. labada madaxweyne waxa ay sii wadi doonaan dadaaladooda ku aadan soo dhaweynta wadajirka iyo midnimada shacabka Soomaaliyeed waxayna soo jeedinayaan qabsoomidda shir wada tashi oo ku aadan xaaladda adag iyo duruufaha khatarta ah ee ku xiran midnimada iyo qarannimada dalka. madaxdu waxay isku afgarteen in la sameeyo guddi qabanqaabo shirweyne wada tashi oo ka shaqeeya farsamada iyo qabsoomidda shirka. labada madaxweyne waxa ay ku celiyeen mowqifka adag ee ay ka taagan yihiin qorshaha aan sharciga ahayn ee lagu bedelayo dastuurka dalka kaas oo halis gelinaya dadnimada iyo midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimadoodaba. madaxdu waxay fariin u direen guddoonka iyo xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyaga oo kula dardaarmaya in ay ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybinaya midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed ayna ka joogsadaan hanaanka aan waafaqsanayn sharciga ee lagu bedelayo dastuurka dalka. madaxdu waxay uga digayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku sii socdo dhabahan qardajeexa ah ee bedelidda dastuurka waxayna u soo jeedinayaan inuu ku laabto jidkii sharciga ahaa ee wadar ogolka ilaaliyana dastuurka uu ku dhaartay. ugu dambeyntii labada madaxweyne waxay u mahad celinayaan madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani golayaasha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland soo dhaweynta diiran iyo sidii martigelinta wanaagsan ay u sameeyeen. wabillahi tawfiiq.